Somaliland halkay martay halkan Somaliland baa ka laabtay Somaliland gobol leetiino intaad waxa lahayd dhulkaagii baa lagu dul cunay dalkaagii baa lagu dul iibiyay wax alla iyo wax faa'iido oo kale oo leedahay ma jirto adiguna meelahan la taagan tahay Somaliland mideeda kale la socdo oo Soomaaliya wax khayraad oo ay leedahay ma jirto taa waxaad ku garataa 5% gan ay siinayaan gas ay haysto Soomaaliya male kay ku xisaabtantaa waa midka Somaliland horta waxa Ilaahay mahadiya in wixii aan ka hadlayay bishii November iyo December aad ka uga hadlayay ee ahaa heshiiska Soomaaliya iyo Turkiga oo maanta soo ifbaxay maanta raad aragteen laakiin maalinta 7% maan ku lahaa maanta laakiin tii way ka duwantay waxay maraysaa 90% inuu qaato Turkigu 5% Soomaaliya ay qaato 5% kale la boodboodsiyo eega ha anigu waxaan iska leeyahay maaha Abdi Ismail Samatar waraysiga laga qaaday waxa uu ku sheegay oo yiri madaxweynuhu wuxuu yiri aniga markaad aamintaan wax weyn noo hagaagayaan kadibna waa la saxay buuri horta golaha wakiiladu hadii uu wuxuu iska aaminayo oo aan ajandihii ma garanayay maalintaasi yaalay aan la gelinin waxa loo yaqaan cod oo aan laga doodeynin dhibaatooyinkaas leedahay Somaliland xildhibaanadeedu inay isqabqabsadaan oo la isfeerfeero horta danta dalka ku jirta sometimes baa soconaysa laakiin Soomaaliya maanta way idinka arkaya dhibaatada ugu faraha badan leeyahay la kulmayaan waxay noqon doonaan mid ay madaxdoodu ay u geysato sababtoo ah wakiilada quraankiisa ku lahaa ma asaaba min musibatin fabima kasabat aydiyakum eegata dhibaatada ku dhacday ilaa mid gacmiina ku geystaan weeyaan xildhibaanadiina cod ma galiyaan oo cod gacantaaga lagu asxiyaa arrimaha masiiriga ee noocan oo kala arintani ma aha arrin yar oo fudud hay qaar fara badan oo aan la xiriiray oo dhalinyarada reer Soomaaliya waxaan ku leeyahay Somaliland weydii ka soo taagay ka waramahay warisihe kulaha annaga saaxiibow 5% bas sheegay 2% hatta hadaan helayno annaga abaal le ku qabnaa ma ahino waxaas wax shaqeynaya ma horta halkaas ka taagantiin warkana war beena warkii ay soo saarayeen ilaahayeen Somaliland Mareykanku diidayo Soomaaliya Mareykanku hal buu aqaana iyo wixii oo dhan la isdhex gelinay maanta waa ooyeen wallahi rag ilmo ayaa u taala ilmo marka Landris aniga horta mar kasta ha ka shaqeynaa idin leeyahay cadawgiinu isaga mar walba cagta hoostiisa galay Turkigu faa'iidada uu Soomaaliya ku qabo iyo inuu meel walba uu Soomaaliya u raaco way ka arkay maanta Turkigu wuxuu rabaa oo kaliya inuu gafana noqdo gafanaha xanuunka la laabo shilinta ee ku dul nool xoolaha parasite inay noqoto dulin ku dul nool ay rabtaa inay noqoto Soomaaliyana yaciska ma oranayso sababta oo ah nin baahani gob maaha 6 bilyan Mareykanku ku bixinaya baaqiga 6 bilyan nagu bixinaya farxadda ka dhacaysay qaarkiin maalintii waxaan islaaway waalan doonaanba waa bilaahi idin ilaahay wax khayr lahayd idin ka dhigo bal baar horta sababtan 6 bilyan kuma bixiya ayar een wadanka loo yaqaan Turkiga sababtoo ah isagaan Soomaaliya xubin dhaamin maanta boqonka ayaa la idinka qaniinay Xasan Sheekh Maxamuud uu shaqaystay